maxay tahay sababta 40 qof oo Soomaali ah oo ku jira shakhsiyaad caan ka ah guud ahaan bulshada Soomaalida loogu tarxiilayo Soomaaliya oo laga soo tarxiilayo waddankaasi Mareykanka qodobkan aynu barnaamijkeena maanta aynu ku qaadaynaa iyo shakhsiyaadka kamid ah dadkan la tarxiilayo hayeeshee daawada intayna barnaamijka ugu gudagalin haddii channelka ku cusub tahay subscribe saar muuqaalkana like garee ku soo dhawaada barnaamijka sanadahan dambe waxaa sii badanayay tirada tahriibayaasha Soomaalida ee ku wajahan dalka Mareykanka kuwaas oo si la mid ah tahriibayaasha kale caalamka safar ku sii mara dalalka qaaradda Koonfurta Ameerika waxaase dadkaas qaarkood dib loo soo celiyaa marka ay Mareykanka galaan kadib intii xukunka hayay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayay hoos u dhacday tirada tahriibayaasha Soomaalida ee u hanqal taagaya Mareykanka balse markii uu ku guuleystay xukunka doorashada madaxweynaha hadda la doortay ee Joe Biden dowladda madaxweyne Joe Biden waxay meesha ka saartay mamnuucyadii dalalka ay Soomaaliya ku jirto laga saaray safarada Mareykanka balse dadka tahriibta ku gaaraya dalkaas qaarkood ayaa ku guul dareysta in la aqbalo codsiyadooda Soomaali ay tiradoodu gaarayso 40 qof ayaa hadda la filayaa in dowladda Mareykanku ay u soo tarxiisho Soomaaliya 40 qof ee Soomaalida waxay hadda tarxiilka ku sugayaan xabsi ku yaala gobolka Mississippi ee dhaca koonfurta dalka Mareykanka su'aal dad badan isweydiiyaan ayaa maxaa ka khaldama dadka dib loo soo celiyo iyagoo mangaliya doona oo intaas oo safar sii galay maxay tahay sababta dib loogu celinayo qaarna loo aqbalayo dadka tahriibta ee ka talaaba xadka Mareykanka la leeyahay Mexico ayaa waayadii hore marka maalmo kooban lagu hayo goobo dalkaasi ku yaala kolka dambe laga sii deyn jiray haatan waxay warar ku sheegayaan in dadkaas la geeyo xabsi lagu sii hayo inta lagu celinayo waddamadii ay ka yimaadeen haddaba si aan u helo jawaabta su'aasha aan kor ku xusnay waxaan la hadalnay qareen Soomaaliya oo lagu magacaabo Maxamuud Muuse Xasan oo la hadlay warbaahinta Al-Hayes Media waxa uu sharaxay sababta dadka qaar dib loogu soo tarxiilo iyagoo maray tahriib aad u dheer dhaqaale fara badan uu ka baxay dadka marka xabsiga la geeyay buu yiri waxa laga yaabaa in qaarkood dib loogu celiyo Soomaaliya maadaama mangaliyada ay qorteen aysan ahayn mid xoogan oo waxyaabihii la weydiiyay cabsidii su'aalaha ay wax uga khaldameen ayuu yiri qareen warramay Al-Hayes Media ayaa sheegay in dadka magangeliyadoonka qaarkood aysan fahansanayn sida dacwadda loo samaysto dabcan marka dacwadda la qorayo waa in dacwaddaadu ay tahay mid xoogan oo cadaynaysa dhibaatadii aad ka soo tagtay iyo dibkii ku soo gaaray ayuu sii raaciyay hadalkiisa qareenku dhowrkii sano ugu dambeeyay waxaa Mareykanka ka taagneed xiisad la xidhiidha dadka soo galootiga ah ee Soomaalidu ka mid yihiin waxaana gobolada qaar ay ka cabanayaan tirada tahriibayaasha oo aad ugu badatay bishii September ee sanadkan laba bas oo wada tahriibayaal ayaa laga kaxeeyay gobolka Texas dhammaan dadkaasna waxaa lagu daadiyay banaanka hore ee guriga ay Washington ka degan tahay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris amarka dadkaas lagu geeyay guriga Kamala Harris madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo u bixiyay gudoomiyaha gobolka Texas ayaa yimid kadib markii ay xoogaysatay xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay tirada tahriibayaasha ee badatay gudoomiyaha Texas oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in tallaabadaas ay si ula kac ah u sameeyeen ay ku dalbanayaan in dowladdu ay keento siyaasad cusub oo lagu xakameynayo soo galootiga muranka ayaa ilaa hadda taagan xilli ay dad cusub maalin walba ka sii gudbayaan xadka u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico haddaba qareenka oo sharaxaya sababaha Soomaalida dib loogu celiyo oo ay ugu badan tahay iyagoo safarka intaasi dheer ka hadlayana waa kan qareenku ee naga yarbogo siina sheer garee si ay u arkaan dadka hadda ku haminaya inay tahriibaan oo ay maraan dhinaca xadkaasi Mexico si haddii ay xitaa ay galaan ay uga baaraan degaan waxyaabaha lagu soo celin karo